iyo habeen hore dhacay runtii waxay ahaayeen wax oo muddo laga soo digayay maxaa yeelay digashadaas waxay ahayd inuu madaxweyne Farmaajo uusan waqtigii loogu talagalay uusan election ku qabanaynin taasina waxay dhashay wixii aan ogeynin oo ah in baraqa habeen ah yaani dagaal magaaladii uu ka dhaco haddana maalintii kale markii habeenkii subaxdii la gaaranaade wixii dhacawaal ogaa mudaharaadada ay sameeyeen xisbiyada mucaaradka ah wixii ka dhacawaal ogaa marka dhammaan dadka Soomaaliyeed iyo ummadda gobolka Banaadir ku nool iyo beesha caalamka waxa ugu baaqaya inay si degdeg ah xal uga gaaraan hadii wixii shalay aan dhacay laga tusaale qaadan dalka meel fog laga keenay meel fog oo aada oo aanan yaani dib loogu soo celi karin marka waxaan kula tal lahaa codkeygan ku biiri lahaa si nooga qaato nabadeyntaas in bulshada Soomaaliyeed isku duubnaadaan dalkaana horumar ku gaaro waa inuu san noqo mid ammaanka dalka qalqal galina laakiin inay banaan baxaan waa xaq dastuuri ah madaxweynaha waxaan dhihi lahaa markii 2016 adigu waa lagu mudaharaadi jiray wadooyinka dhan la iskugu soo bixi jiray maanta marka xilka qabatay inaad tiraahdo leeymo mudaharaadi karo oo ligama soo horjeesan karo taasi waa aqli xumo waana aqligii 30 sano ka hor aan ku